Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa maanta kulan la qaatay safiirka cusub ee dawladda Mareykanka u fadhiya Soomaaliya Leyre waxayna ka wada hadleen xaaladaha dalka, arrimaha doorashooyinka, amniga iyo abaaraha xilligan dalka ku dhuftay. Rooble iyo safiirka cusub ee dalka Mareykanka ayaa ka wada hadlay doorashada waqtigeeda kadib dhacday, waxaana Rooble la wadaagay safiirka Mareykanka in hawsha doorashada ay socoto si wanaagsan isla markaana lagu soo gabagabay doono waqtigii loo asteeyay ee 25 bishan oo muddo kooban ay naga xigaan. Sidoo kale Ra'iisul Wasaare Rooble iyo safiirka dalka Mareykanka ayaa ka wada hadlay amniga Soomaaliya iyo dagaalka Al-Shabaab lagula jiro sida gobolada iyo degmooyinka haystaan looga xaroy lahaa. Dhinaca kale waxay isla soo hadal qaadeen sidii dawladda Mareykanka ay gacan uga geysan lahayd abaaraha baasan ee ka jira xilligaani gurmadna u soo gaarsiin lahaayeen dadka Soomaaliyeed oo saameyn xooggan abaaraha dalka ka jira ay ku yeesheen. Safiirka Mareykanka ayaa Ra'iisul Wasaare Rooble u ballan qaaday inuu kala shaqeyn doono dhamaystirka doorashada, sugidda amniga iyo ka qayb qaadashada xaaladaha gurmadka ee dadka Soomaaliyeed ee abaaraha ay saameeyeen. Kulankan ayaa ku soo aadaya iyadoo maalmo ka hor xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka oo talaadada ku dhawaaqay soo saarista xayiraado fiiso oo ka dhana shakhsiyaad hadda xilka haya iyo kuwa hore u soo qabtay Soomaaliya oo lagu eedeeyay inay mas'uul ka yihiin waxyeelaynta hanaanka dimuqraadiyadda Soomaaliya doorashadana haatan ay ka dhaqaaqi leedahay. Xogayaha arrimaha dibadda ayaa bayaankiisa ku yiri maanta waxay ku beegan tahay sanad guuradii koowaad markii madaxweynaha dhammaaday madaxweynaha Soomaaliya waxaan ku dhawaaqaynaa fulinta xeerka socdaalka qaranka qaybtiisa 112 ee 3C kaas oo diidaya in fiisa la siiyo shakhsiyaad xilka haya iyo kuwa hore u soo qabtay Soomaaliya kuwaas oo la rumaysan yahay inay mas'uul ka yihiin waxyeelaynta hanaanka dimuqraadiyadda Soomaaliya. Xogayaha ma shaacin magacyada shakhsiyaadkaas la beegsanayo siyaasad ahaan fiisa ka xayiraada. Dawladda Mareykanka ayaa tiro dhowr jeer hore ugu goodisay inay xayiraada la beegsan doonto madaxda Soomaalida haddii aan lagu soo gabagabayn doorashada ka hor 25 Febraayo, waxaana cabsi laga qabaa inuu soo rogaal celiyo kuwa cusub oo kale. Kulanka Ra'iisul Wasaare Rooble iyo safiirka dalka Mareykanka cusub oo dhawaan Muqdisho soo gaaray warqadaha aqoonsigana laga gudoomay waxa ku wehelinayay wasiirka amniga iyo mas'uuliyiin kale oo ka tirsan xukuumadda Ra'iisul Wasaare Rooble waxayna dhinacyadan isweydaarsadeen xaaladaha guud ee amniga sidii looga wada shaqeyn lahaa iyo doorka dawladda Mareykanka ay ku yeelan karto gurmashada dadka Soomaaliyeed abaaraha ay saameeyeen, ka qayb qaadashada doorashada iyo la dagaalanka ururada nabadiidka ee ka dagaalama gudaha Soomaaliya. Shirkii ugu dambeeyay ee golaha wada tashiga qaranka oo aalada fogaan aragga ku qabsoomaha iyo Ra'iisul Wasaare Rooble xusay inay dhinacyada isweydaarsadeen sida waqtiga loo asteeyay doorashada ee shirkii golaha wada tashiga qaranka ee hore loo soo gabagabeeyay looga dhabayn karo isla markaana 25 ka hor ee bishan doorashada xildhibaanada la soo gabagabeeyo. Tan iyo wixii ka dambeeyay shirkii golaha wada tashiga qaranka ee 9 bishii hore la soo gabagabeeyay lagu gorfeeyay waqtiga haatan doorashada lagu soo gabagabeynayo waxaa yaraa caqabadaha iyo sidoo kale xiisadihii doorashada hore uga taagnaa maadaama dhinacyada siyaasadda badi ay raalli isaga ahaayeen. Inta ayaan ku soo gabagabanaynaa warbixintan gaarka aad kala socoteen Fagaara TV. Fadlan muuqaalka hadduu ku soo gaaro daawada sii share garay saaxiibadaada kale la wadaag page-keenana ku soo biir oo follow iyo like saar si aad u hesho xogaha aynu halkan ku baahinno. Mahadsanidin.